السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا لكم قبلنا قبيلة سلسلة جرمة كقرنه يكون وجهنا دوفان كيد بيلها الروب كوطاه وصل الله وضعكم لو ذوقي هي لما قشون هي نف يمالبا أي خسارة وين جارسيين روبكو مقالة قرنه ضدك يكون ورا ضد يدو يمالبا إلهي وحنا هي هكذا طبيعي هو عول عليه حنا لو gurmado ayaanu baaq guud ku direena hadii aan nahay anigoo ku hadlaya afka golaha abwanada afkiga dhaqanka shanta Soomaaliya oo magacooda loo soo gaabiyo gaarshinsa gabayada gurmadka qarno waxa bilaabay nin la yiraahdo abwaan aw farax gure wuxuu yiri aw farax gure bismillaahir rahmaanir rahiim afada samaawaadka iyo eebe wuxuu keeno hadba meesha lagu aadiyay ku ismanaatay oo nabad ku soo hoyatay ebarka yeesha mid kale oo agtiisana waa laga ilaashay haddii adigu aad aamin tahay ood kala rogani islaam maxamed ruuxi ah baa la itixaama aqalada ka dumay reer karkaar amarka soo gaaray dadka lagu amaagiyay biyaha lagu alhuumeeyay aadmiga la waayaan lahayn baru ku ayuuday urugada in lala qaybsadaa ila ekoonayde aamus looma baahnayo inaad gacanta awdaani abidkeedba Soomaali waa u leeyahay diirkeed abidkeedba Soomaali waa ehel walaalaah mid hadduu arado kii kala iibin jiray maale ololaha u kaca oo gurmada orodku waa heele ayuu yiri aw farax gure waayahay aw farax gure halka markuu soo dhigay waxa soo galay nin la yiraahdo Cabdullaahi Cali Ibrahim Geelle wuxuu yiri Geelle aw faraxow gabayga waa loo abtiriyay asal raacna waa leeyihiin abiyo taariikhe ardaagu ka soo jeeday iyo awgii baa tahay asraarna kuma fiicna iyo aanu reer hebele adduunka iyo aakhiro rag baan ku asturnaanayne ayaantii timaadaba dabay sii ulkumiyaan amaan iyo duca laga dhaxlaa ereyga dooroone anfac laguma dooniyo ragad kale irdhowdaani adshar iyo waxa laga dayaa khayr jaabale ayatiinka wacan ba halqiga loo dorosaaye ololkiyo waxa lagu dhayaa urur colaadeede kul hadaad abwaan tahay dib loo arrimiyaa afarta ogeysiis murtida lagu aloosayo ilaahan ka mansoon jiriyo uba xabaarkiisa ibahan ka haaneedi jiray ayro iyo laande amuraha dhacayo waqtiga weynu aragnaa amintaynu joognana qardha aarankii maray oo dagooye watuu miriyo rooban kodaya ilulu ka wada jeexayo leysag mari waa istoorada wax lagu keydsidiyo aqalan naafeeyo ajalaha ku baxay baa hadaraaski loo kacay ugu buu la tagay baa jiriyo odayo waaweyn dan yar iyo agoomaa jiriyo ruuxi taal daran dhulka meel amaana jirtiyo qaar la awdalay ninba maalin bay eersataa abaaba adeedii ehel weeye Soomaalida aradka taalaaye arxan iyo islaamnimo ayaa loo irkanaya asxaankaad fashaan baad qabriga ku arki doontaane anfaaciga la quutiyo waxaad lacag awoodayso ilaahay dartii soo gurmada aamus laga roone ayuu yiri Cabdullaahi Cali Ibrahim Geelle waxa soo galay halka markii garantu baturnayso gabadh magaceeda la yiraahdo Kobra Xaaji Xasan Maxamuud abwaanad Kobrana waxay tiri gabayada abwaanadu tirsheen aragti weeyaane oo farax iyo Geelle waa umul hadlayaane qardho aafadii gaadhay baa urku naxaya walaalaha la soo aasay iyo waalid urugaysan anfac iyo adduunyo wuxuu la tagay aqalan naafeeyay anfariirka shacabkii ku dhacay ooyday fiintuba Allah ayow awood wax ugu qabo aamus baa dhacay ayay tir Kobro halka markii soo dhigtay Kobrona waxa soo galay nin la yiraahdo Saciid Maxamuud Jirdi wuxuu yiri Jirdi nimayahow amuura dhiciyo amar ilaahay itixaanku waa shay la filah aadanaha guudi afooyin waa dhici jireen la shaqaraara eegana sidoo kale ayaan maanta aragnaa adduun waa harqoodaal siduu yiri abwaankii kuwa aamin oo qaar kale aadun cunaya ibtiladu kuway saaran tahay qaarna waa ugube eelkii ku dhacay reer karkaar ama alhuumeeyay intii uu ilaah oofsaday ee aakhiro hoyatay udugii jannaan ee bahay uga idaayay adduunyada wixii daad la tagay aqaladu duugay alla weyne bedel khayr qabaan ka abdanaynaa buu yiri adiga badbaadali allow lagugu eertaaye aqbal weeye suugaan wixii lagu inshaaraaye allahayow nasama bixi aday taada ku idlaane ayuu yiri Saciid Maxamuud Jirdi halka markuu Jirdana soo dhigay waxa soo galay nin magaciisa la yiraahdo
mahad maxamed ashkir wuxuu yiri mahad maxamed ashkir wuxuu yiri ashkir abidkeed waxa la arki jiray afooyo guule waxa la itixaamaadadan ee bacaasiine amuraha qardhood caawaan erika falleeyo albaqriyo haddii aan akhriyo aayadaha diinta alafaad haddaan bixino iyo lacag adduun goysa amarkii ilaah baa ka weyn waan aragnaa onkudkiyo daruuraha curtiyo uuradiyo roobka iyagoona daras loo arkayn lana inshaaraynin ummadaha badh buu qaatay iyo aqaladoodii ibtilada rabbaaniga dad baa lagu ekeeyay raxmadii ilaah laga bariyay awgu wada tuugay waa ka albaabada jabsaday oo dafiye dayr ogeysiis ilaah weeye iyo aalad gooniyahe istaghfiran laba noo eg iyo inaan najiibnaay ahdi iyo ninkii diin lahaa waa aqbalayaan islaam iyo haddii aynu nahay unug walaalowday abtirkeenu waa mide inaan aaminaan rabay ololaha qardhood inaan gana ilo wacan aad ubadkiisa geeli watiyo ariga daaqaya anfaciyo dhaqaalahaba waa la iska ururshaay afooyinka dhacay inaan eegno baan rabay adduunyada waxaad bixiso waad ku astareexdaaye adduunyada waxaad bixisto baad ku asturnaataaye ajarkooda lama koobi karo aakhira badane akoomada furfura maalin baad ku irkan doontaane qofkii aabihii waayay iyo ehelka qaybtiisa ama ruux agoon quudiyo waliba iimaan leh 14 buu noqday lameylawaan anshaxeeda suugaanta waa loo abtiriyay af Soomaali baan ku hadlayaa ku aadamayay inaan u liyo diirnahay ayaan idin ogeysiiyay ayuu yiri ashkar markuu halkaas soo dhigay waxa soo galay nin magaciisa la yiraahdo Cabdixakiin Dalmar Farax wuxuu yiri Cabdixakiin Dalmar Farax aad gabay abwaankii bartaa aad u fududeeyay arartiisa kama awdo iyo alif oo laaye anigana ujeedkaygu waa afadii timi arladeena Soomaaliyeed roobku ku ekaaye ugubna maaha inuu ku dooda gooyuhu alla baryada loo dhigaalana inshaara aaminta waxa loo badshaa inuu yimaaday amar baasi soconayo oo la isku aafeynay agi qardhood buu ku dhacay axalkii weyna aqsifkii magaalada afrugay aadanuhu yaabi odayaalna waa laayay iyo inamadeeniyo aqallu ku dumiyaa la yiri ubadku jiifeen agabkagama tegin baa la yiri washii wada tiile albaabkay biyuhu uga galeen ganacsi oo laaye awrtiyo aloo soo dhashiyo arina naafi gabayga mahmaahda waa lagu adkeeyay ehelkii nin loo xiiray waa lagu ag joogay adna qoysu mahmaahdu waa ku iba beesha waa in loo istaagaa rabbina waa asturayay ummadii abwaanaduna ay wax wasteeyaan halka ayuu soo dhigay Cabdixakiin Dalmar Farax silsilada gurmadka qardho qaybteedii koowaad halkaas ayaynu joogaysaa qaybaha dambana waa ka wada socon doonaa waa Cabdilaahi Cali Ibrahim Geelle oo idin la socodsiinayay silsilada gurmadka qardho iyo goliyaha abwaanada